subscribe taabo halkan. sidoo kale kambaleelka ama jeliska furo. haddii ciridkaagu dhiigo markaad cadaynayso ama dunta ilkaha bilowga hore laga yaabaa inaad u aragto xaalad iska caadiya, laakiin dhiigga ka yimaada ciridku wuxuu tusayaa inay jiraan waxyaabo sabab u ah dhibtaas, sida inaad cadayto si dhaqso ah, dhaawaca ciridka, uurka iyo bararka ciridka waa kuwa ka qayb qaadan kara dhiigga ciridka. bararka ciridku wuxuu sababaa inuu casaado, fido iyo kaar ama xanuun. xaqiijinta waxaa sababta ah cirid dhiigga waxyaabaha jaangooya in sida ugu saxsan loo daweeyo loona qoro dawada ku habboon. ogaanshaha waxaa sababta waxaad dooran kartaa tiraba 10 hab oo ay suurtagal tahay in loo joojiyo dhiigbaxa ciridka. nadaafadda afka. cirid dhiigga laga yaabaa inuu yahay calaamad muujinaysa liidasho nadaafadeed oo afka ah. waxa uu noqdaa ciridku mid bararsan, dhiigaya markuu ku sameysmo lakab sare oo ku taxan gunta hoose ee ciridka. lakabkani waa mid adag, waxaana ku jirta bakteeriya taas oo ku tahaaran ciridka iyo ilkaha. bakteeriyadu way fidi kartaa waxaana keeni kartaa suus iyo xanuunada ciridka iyo ilkaha. si aad kor ugu qaadid nadaafadda afka, caday ilkaha maalintii ugu yaraan 2 jeer iyo dunta ilkaha 1 mar maalintii. wanaajinta saxada afka si gaar ah waa ugu muhiim dumarka oo kale. isbedelada hormoonada xilliga uurka waxay kor u qaadi karaan xanuunada ciridka iyo ciridka oo dhiiga. hydrogen peroxide u isticmaal inaad ku nadiifiso afka waxay meesha ka saartaa lakabka ilkaha iyo ciridka, sare u qaadida caafimaadka ciridka iyo joojinta cirid dhiigga. haddaad leedahay cirid dhiigga kadib cadayashadaada ku luqluqa hydrogen peroxide balse halliqa. daraasad la qaaday ayaa muujinaysa ku luqluqashada hydrogen peroxide ay tahay mid shaqaynaysa, hoosna u dhigi karta cirid dhiigga iyo cadaynta ilkaha. jooji sigaarka. waxaa si weyn loola xiriiriyaa khatarta kansarka sababka xanuunada wadnaha, faaliga ama shalalka. sigaar cabidda waxaa lala xiriiriyaa cirid xanuunka ama cudurrada ciridka ku dhaca. wuxuu hoos u dhigaa difaaca iyo in adkaato in jidhku la dagaalamo bakteeriyada iyo lakabka samaysma. tan ayaa kuu horseedi karta cirid xanuun. joojinta cabidda sigaarku waxay kaa caawinaysaa bogsashada iyo joojinta cirid dhiigga. warwarka. daraasad ayaa muujinaysa xiriirka ka dhexeeya xanuunada ciridka iyo xaaladaha nafsad ahaaneed ee warwarka. sida ay sheegeen baarayaal kala duwani, sare u kaca heerka warwarka ee qofka wuxuu saameyn ku yeeshaa habka difaaca. tanina waa maxsuulka ka dhalan kara oo ah daciifnimo difaaca jirka iyo u nuglaasho caabuqa ama infekshanka. fitamiin C. cunitaanka cuntooyinka ku qaniga ah fitamiin C waxay xoojiyaan habka difaaca iyo inay kaa taageerto la dagaalanka infekshanka ciridka kaas oo sabab u ah cirid dhiigga. beddelkeeda, helitaan la'aanta in kugu filan oo fitamiin C ah cuntadaada waxay uga sii daraysaa dhiigbaxa xilliga cirid xanuunka. hubanti fitamiin C la'aantu waxay kugu hogaamin kartaa cirid dhiigga xitaa haddii ay wanaagsan tahay nadaafadda afku. fitamiin K. waxaa suurtagal qaadashada fitamiin K inay meesha ka saarto cirid dhiigga. waa muhiim fitamiin K waayo wuxuu xinjireeyaa dhiigga kana caawiya ka hortagga dhiigbaxa dheeriga ah. yaraanshihiisu wuxuu keenaa inaad si fudud u dhiigbaxdo. daraasad ayaa hoosta ka xariiqday qaadashada fitamiin K ay si weyn uga hortagto dhiigbaxa xilliga cirid dhiigga. baraf saar. cirid dhiiggu ma aha hadii jirmidu sabab u yahay xanuunada ciridku. sidoo kale ciridku inuu dhiigo waxaa keeni kara dhaawac ama jug soo gaadha nudaha ciridka. barafka lagu cadaadinayo ee la saarayo lingaxa ama gunta ciridka waxay keeni kartaa inay hoos u dhigto bararka iyo xitaa inay joojiso dhiigbaxa. carbohydrate. baaritaano ayaa lagu ogaaday yaraynta carbohydrate-ka inay horumariso caafimaadka ciridka iyo ka hortagida cudurrada ciridka. carbohydrate-ka iyo cuntada sokorta leh waxay dardargeliyeen samaysanka lakabka ilkaha iyo koritaanka bakteeriyada. kulaanshaha xaddi badan oo lakab ah ciridka waa macquul in ciridkaagu dhiigo, inkastoo cadayga joogtada ah uu hoos u dhigo samaysankiisa. joojinta carbohydrate-kuna waxay kaa caawinaysaa ka hortagida lakabka samaysmaya. shaha cagaaran. joogtaynta cabitaanka shaha cagaaran maalin kasta waxay bogsiisaa ciridka jiran ama buka iyo joojinta cirid dhiigga. waxaa ku jirta shaha cagaaran maadada catechin oo ah antioxidants awood u leh yaraynta bararka, bakteeriyada afka iyo kor qaadida difaaca jirka. daraasad ay ka qayb qaateen 940 qof ayaa lagu sheegay in shaha cagaaran uu yahay mid shaqaynaya kana caawinaya kor qaadida caafimaadka afka. biyo milixda. maxaa yeelay bakteeriyada iyo bararka afku waxay sababaan cudurrada ciridka. si joogto ah biyo ugu luqluqo kuwaasoo diiran oo lagu qasay milix waxay xal u yihiin bakteeriyada iyo cirid dhiigga.
qaado ama malgacad barhkeed oo milaxa ku qaskoo biyo diirana afka ugu daa ilbiriqsiyo 4 jeer maalin kasta. waxay afka ka dhigayaan mid nadiif ah iyo ka saaridda bakteeriyada taasoo sabab u ah caabuqa ama infekshanka nabarrada ciridka.